isku soo baxan oo lagu taageerayay kacdoonka shacabka ee dalka looga saarayo argagixisada isla markaana lagu soo dhaweynayay ciidamo iyo mas'uuliyiin ka tirsan beesha Sure oo xalay ku soo biiray howlgalka ayaa lagu qabtay degmada Wisil ee koonfurta gobolka Mudug. isku soo baxan ayaa waxa soo qaban qaabiyay maamulka degmada Wisil iyo guddiga difaaca iyo dib u xoreynta koonfurta gobolka Mudug waxaana ka qayb galay wasiirka amniga Galmudug xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo saraakiisha ciidamada beelaha Sacad iyo Sure. ugu horeyntii isku soo baxan waxa ka hadlay mas'uuliyiinta maamulka degmada Wisil. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta u helna cadawgii aan la hargamaynay 2 sano iyo ka siyaadada kaligeen inaan maanta u helna garba buuxa oo heer federaal iyo heer state iyo heer deegaan intaba runtii aad iyo aad bay noo farxad galinaysaa waxay nooga dhigan tahay awal madiba ahayn raadanahay reer gobolka Mudug maanta waxa helnay garba ayaan helnay walaalo ayaa helnay maadaama ay nala qaateen gobolada Soomaaliya dhamaantood oo idil halkan waxa laga diyaariyay 300 oo dumar ah oo jiida hore saraakiisha ciidanka la gali doonta reer Wisileed gacmaha taaga inaad diyaar u tihiin inaad cirib tirtaan cadawga ummadda Soomaaliyeed ee qawaariijta islaam ma ahan waa gaalo saqiirkii labada bilood jiray bireynayaan shacabkii bay dilayaan dumarkii bay dilayaan xoolihii bay bireynayaan ummadda Ilaahay bay dhacayaan diyaar ma u nahay inaan ka qayb qaadano cirib tirka qawaariijta howlgalka duulaanka uu hogaaminayo madaxweynaha sharafta leh madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo hogaamiyaasha dagaalka gudoomiyaha guddiga difaaca Sheekh Cabdimanaan Sheekh Maxamed Cismaan iyo qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada Sacad iyo Sure oo isku soo baxan ka hadlay ayaa sheegay inay iska kaashanayaan ciribtirka kooxda nabadiidka ah Al-Shabaab. waa markale banaanbax khawaarijtii looga soo horjeedo laguna taageerayo dawlad iyo shacabba waxa allaala waxa khawaarijta la jihaadaya sida awgeeda waxaan rabnaa reer Wisileedow maadaama aad hoggaan ka ahaydeen wajigii horeeto maanta markale kacdoonkan midkii ka culus ee lagu soo gabagabeynayo lagu soo abjarayo khawaarijta inaad qaybtii kale ka qaadataan hadda ka hor aan dadkaan u sheegnay inaan badda ku shubi doono waa baddii baan maanta lagu shubayaa inaad u dulqaadataan baa la rabaa waayo haddiina idinku soo dhaweyn waa inaad ka faa'iidaysataan haddaad tihiin reer Wisileed intaasaa halganka ku soo jidheen mudnaantiinnana mar baad heli doontaan haddaad shacab tihiin haddaad odayaal tihiin haddaad dhallinyaro tihiin waxa kaliya laydinka rabaa inaad maanta soo dhaweynta dadka iyo dagaalka fayskiisa labaad inaad maanta ka qayb qaadataan olna waa ka qayb qaadateen kuma eedaysniin haddana waa laydinku soo dadki waa u jeedaan inay yimaadeen dadkaan annaka u yeernay shalay aan nidhi baddaan ku shubayna waa dadkii badda ku shubi lahaa ka faa'iidaysta dadkiina weeye soo dhaweeya dagaalka u hormara oo lagu soo galay dagaal gumaysi la dirira waxay noqotay meel taariikh ku leh Soomaaliya meesha dagaalka gumaysi la dirirku waa ka qaraar yahay dagaalada kale laakiin waa ka miro fiican yahay waa ka mustaqbal fiican yahay waa ka taariikh iyo magac dheer yahay mana ahan dadkaanu dad ama maskax Soomaalinimo ama muslimnimo ku jiro waa dad fikir kala xambaarsan oo diinta islaamka soo horjeeda dhaqanka suuban ka soo horjeeda dawladnimada iyo amniga nolosha ka soo horjeeda haddii aad soo marteen maalmo qaraar waxa idin bilaaban doona maalmihii macaanaa oo farxad iyo moralka laha dadka soo meesha keenay waxaan rabnaa soo dhaweyn gacmo furan haddaad haweenka tihiin haddii dhalinyarada leeyahay haddii culimada leeyahay waqtiga yaroo noo haray soo diyaar uma inaan ku bixino insha Allah kariim khawaarij waqtigii ay dadkan gumaysiga ku haysatay oo telefoonka laga carari jiray way dhamaatay waxa la idinka rabaa kuwa la keenayo oo la soo qabanayo inaad si naxariis leh ula dhaqantaan adinku aad ku kala noqonina midiyaha waa faysta haddii Ilaahay idmo ballanteenu intaas weeye xildhibaanada matala bulshada Wisil iyo Bacaadweyne ee Galmudug ayaa tilmaamay ahmiyadda ay leedahay in la iska kaashado xoreynta deegaanka iyo walaalnimada bulshada u diyaarsan iska kor qaadista argagixisada dagaalka khawaarijta haddaan ugu sinteen oo halkaan ay soo gaarsiiseen Ilaahay idankii waxaan rajo ka qabnaa inaan wax ka dhamaystirno garbiheena istaagno in la socono deegaamo badan oo naga maqan annagana Soomaaliya oo dhan ka maqan Soomaaliya ka wada maqan yihiin gaar noogama maqna balse waa deegaanadeennii iyo halkii aan ku dhalannay
waana tegaynaa hadduu alla idmo inay noqoto qaatimkii ugu dambeeyay insha Allah taala cadow lagu xarooy lahaa waana rajaynaya Ilaahay subxaanahu wa ta'ala maanta u dambeeyay noqoto marka waxaan rabaa reer wasiileed inaan kula dardaarmo sida maanta u soo baxdeen iyo si ka balaaranba waxa yimid dadkii walaalaha ee Ilaahay subxaanahu wa ta'ala inamal mu'minuuna ikhwatan yiri diin iyo nasab aan walaalka ku ahayn ay ugu soo hormareen walaalahayna reer Sure ama Xeraale ama Huurshe ama Bacaadweyn ama Marjicle mid la yiraahdo dhammaan insha Allah taala waxa xalana soo gaaray kuwa ku soo xogana soo gaari doona reer wasiileed waxa la rabaa insha Allah taala soo tali u sheegay in la garab istaago dadka la soo dhaweeyo insha Allah taala ugu dambeyntii wasiirka amniga Galmudug Maxamed Cabdi Aadan Gaboobe ayaa shacabka Galmudug iyo beelaha ugu baaqay inay u diyaar garoobaan xoreynta dalka waxaan rabnaa inaan tartankaas inaan qabanno haddii alla idmo degmada ugu hor qaadata ka qayb qaadashada iyo muxuu ahaa garab istaaga ciidamada qalabka sida hadday noqdaan kuwa Galmudug hadday noqdaan kuwa federaalka hadday noqdaan dadka deegaanka waxaan rabnaa in si dhab ah loo garab istaago oo degmo kasta la arko waxa ay ku garab istaagayaan ciidanka hadday calaf tahay iyo hadday cood tahay wax kasta inay diyaar garoobaan oo ay yiraahdaan waxaasaan kaga qayb galaynaa haddii alla idmo xooga qofka naftiisa keena oo naftiisa meesha keena oo yiraahda diyaar baan ahay anigu iyo qofka xoola keena iyo qofka muxuu ahaa gaadiid keena dhammaan qof kasta waxa looga baahan yahay in uu ka qayb qaato Saadaq Saciid Nuur raadiyaha telefishinka Galmudug degmada Wisil